asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal soo dhawaada waa muuqaal cusub iyo channelkani tacticada kubadda muuqaalkan maanta asxaabay waxa aynu kaga hadlaynaa oo kusii hordhacaynaa kulamada wareega lugta labaad ee wareega 16 tartanka Champions League iyadoo asxaabay muuqaalkan maanta aynu kaga hadli doono afarta kulan ee la ciyaari doono toddobaadkan sida asxaabay wada ogsoonnahay kulamadan la ciyaari doono toddobaadkan ma jiro hal kulan oo ku soo dhamaaday barbaro waa afar kulan oo la soo kala adkaaday waa afar kulan oo la soo kala baxay waa afar kulan oo u baahan in remontadooyin la sameeyo in soo laabashooyin la sameeyo yani ma jirto kulamo la isbreechiyay waxaan maleynayaa in wareegan oo dhan hal ciyaar barbaro ku dhamaatay ciyaartii Napoli iyo Barcelona taas maxay noo sheegaysaa in wareegan aad iyo aad u faacsan yahay wareegan aad iyo aad u kacsan yahay muuqaalkan maanta asxaabay waxaanu kaga hadli doonaa kulamada la ciyaari doona habeenimada Salaasada iyadoo kooxda Valencia oo laga soo adkaaday wadanka Talyaaniga marti gelin doonto markan Atlanta sidoo kale Tottenham ayaa doonaysa inay mucjiso sameyso mucjiso u dhowtii ay ku sameysay Ajax Amsterdam xilli ciyaareedkii hore sidoo kale Liverpool iyo Paris Saint-Germain ayaa laba imtixaan aad iyo aad uga hor yaalaan iyagoo marti gelinaya kooxaha Borussia Dortmund iyo Atletico Madrid soo dhawaada asxaabay falanqayntii iyo hordhacii oo faahfaahsan kulanka koowaad asxaabay muuqaalkan maanta waxaynu kaga hadlaynaa kulanka kooxda Valencia marti gelin doonto kooxda wadanka Italy Atlanta Bergamo waxaan maleynayaa kulankan in la sii shaaciyay si lamid ah kulanka Borussia Dortmund ay marti ugu baxayso kooxda Paris Saint-Germain in labada kulan la ciyaari doono bila taageerayaal rutina waa wax aad iyo aad u xun wax xamaasada yani ciyaarta wax weyn bay u dhimaysaa tartankan kuleelkiisa iyo xarradii lagu yaqaanayna wax badan ayaa iska bedelaya laakiin waxa laga cabsanayaa ama laga baqayaa in uu faafo xanuunka coronavirus darteed ayaa loo sameeyay in lagu ciyaaro ciyaaraha albaabada xidhan waxa ka horeysa yani caafimaadka dadka ayaa ka horeeya ciyaarta haddii soo noqono kulanka kooxda Valencia runaantiisan hore uga soo hadalnay wareegii gurubyada sidoo kale ciyaartii hore ama lugtii hore wareegan kooxda Valencia maaha sidii hore lagu yaqaanay sidoo Valencia maaha koox aqoon badan oo leh tartanka Champions League kooxda Atlanta Bergamo ayaa ka dadaal badan kooxda Atlanta ayaa ka joogteen badan kooxda Atlanta ayaa ka taktiig iyo farsamo badan si darteed Atlanta Bergamo anigu u saadaaliyay inay kasoo gudbi doonto kooxda Valencia markana waxay ogtahay in aanay kooxda Valencia aanay soo laabasho sameyn karaan ra'yi ahaanteeda yani wax kasta waa macquul wax kastana way dhici karaan laakiin ilama ahaan ra'yi ahaanteeda way kooxda Atlanta Bergamo asal ahaan maaha koox difaacanaysa golashay hore soo dhaliyeen waxaan filayaa waliba anigu aan ku haweenahay oo waliba aan u saadaalinay ciyaartan in ay guul labaad u noqon doonto kooxda Atlanta Bergamo oo aan filayo inay ka faa'iideysan doonto maqnaashaha ay ka maqan yihiin taageerayaasha kooxda Valencia ciyaartan waxay noqon kartaa ciyaarta ugu fudud noqon kartaa waxaana la leeyahay karaa labada ciyaarood kaliya ama labada kooxood ee si 80% u sii jooga wareegga sideeda waa Atlanta Bergamo iyo Bayern Munich oo ka kala adkaaday Valencia iyo Chelsea labada kooxood Napoli iyo gool bay ku adkaatay midna 3-0 si darteed natiijada ayaan u leeyahay labada kooxood ayaa 80% si taagan sidoo kale Valencia horyaalkeed yani wacdar badan ka dhigmayso Valencia qaab ciyaareed la yaab lama soo bandhigayso si darteed 9% waxaan filayaa in Atlanta Bergamo ay u soo gudbi doonto wareegga sideeda ciyaarta labaad ee la ciyaari doono kooxda Tottenham ayaa u bixi doonta garoonka kooxda RB Leipzig oo runtii tan iyo markii la ciyaartay kooxda Tottenham Hotspur hoos dhac aad u weyn ku yimi horyaalka Bundesliga kooxda RB Leipzig ayaa talaabo uga fogaanaysa kooxda Bayern Munich oo ku dhow inay ku guuleysto horyaalka wadanka Bundesliga laakiin Timo Werner iyo saaxiibadii oo sidoo kale ka baxay tartanka DFB Pokal ayaa doonaya in ay focus ka saaraan ama xooga ay saaraan tartanka Champions League oo kaliya la dhigi karo waa tartanka u haray ama ay ku tartami karayaan uma leeyahay inay ku guuleysanayaan laakiin yani sharaf weyn ama magac weyn ay doonayaan inay ka sameystaan waxay doonayaan heerar hore ay gaaraan inay horta Tottenham ay ka adkaadaan wareegisteeda gaaraan kadibna ay eegaan kooxda la ciyaarayaan markaana ay qiimeeyaan inay kasoo gudbi karaan iyo in kale yani rajadooda ugu weyn maanta waxay ka taagan tahay horyaalka ama tartankan Champions League yani uu dhamaaday horyaalku ayaan dhihi karaan ra'yi ahaanteeda horyaalka kooxda RB Leipzig kuma guuleysan karto kooxda Bayern Munich ayaa 9% ku guuleysanaysa sidoo kalena tartankii DFB Pokal way ka baxday marka waxa uu tartanka Champions League dhanka kale kooxda Tottenham ayaan
dhankeeda aan haysan yani waxyaabo badan ay ku tartamo badan aan haysan horyaalka Premier League way ka quustay ma dhigi karnaa bilihii ugu horeeyay top 4 waxa la dhigi karaa waa kooxda ugu nasiibka yar leh ama ugu rajada yar leh tartanka FA Cup ka bixin Carabao Cup ka bixin si darteed waxa la dhigi karaa xitaa warar ayaa soo baxayay habeennimadii Jimcaha in Jose Mourinho uu maamulka kooxda Tottenham ku codsaday ama inay xoog ay saaraan tartanka Champions League oo ku guuleysto kooxda RB Leipzig ama in ay top 4 kan xilli ciyaareedka dambe ay tartanka Champions League soo galaan oo top 4 ay ku dhameystaan labada mid ay xoog saaraan yani isku wadi karaan kadib dhaawacyada ku yimi Harry Kane iyo Heung-min Son dhibaatooyin badan ay ka taagan kooxda Tottenham Hotspur laakiin markii ugu dambeysay xitaa ay ka soo baxayeen ama ay ka soo gudbayeen kooxda Ajax Amsterdam xaaladoodu tan ayay u ekeed ama tan mid u eeg oo u dhow ayay ku jireen si darteed lama dhihi karo kooxda Tottenham waxa haysta cudurdaar waayo markii ugu dambeeyay Ajax ka adkaadeen malihii anigu kooxda Tottenham 100% inay badiyaan laakiin way ku khasban yihiin yani duruufaha la dhaqantaa oo in duruufaha u heshaa xal yani marka hore wana ku tala gasheen Harry Kane dhaawacmi karayo khaladka ugu weyn waxa kule maamulka kooxda Tottenham oo fasaxay bedelka qura u haystay Harry Kane kaas oo ah Llorente oo ay fasaxeen si free uga tagay naadiga mar dambana ku biiray kooxda Napoli si kasta ha ahaatee kooxda Tottenham ayaa haystay rajadeedii ugu dambeysay ee xilli ciyaareedkan ay ku badbaadsan kar lahayd si lamida RB Leipzig laakiin RB Leipzig oo ka xaalad wanaagsan tahay kooxda Tottenham Hotspur oo iyagu ugu yaraan xilli ciyaareedka dambe tartanka Champions League way ciyaarayaan laakiin kooxda Tottenham xitaa taama hubto in xilli ciyaareedka dambe ay ciyaari doonto waxa ay u baahan tahay kaliya in ay RB Leipzig ka adkaato wax kasta haday dhacaan si kasta ha u ciyaarto si kasta ha looga kubad wanaagsanaado si kasta ha u xumaato si kasta ha uga dhaawac ahaato waxay u baahan tahay in ay guuleysato si ay ugu soo gudubto wareegga state haddii kale xilli ciyaareedka kooxda Tottenham habeenkaas ayuu dhamaanaya haddii halka ku gudbana asxaabay labada kulan ee la ciyaar doona habeenimada Salaasada oo inuu gudbina labada kulan ee muhiimka ah labada kulan ee waaweyn kulamada kooxda Paris Saint-Germain martigelinaysa kooxda Borussia Dortmund iyo Liverpool martigelinaysa kooxda Atletico Madrid kulanka PSG iyo Dortmund hadan ku horeeyo runtii kulankan sida la filayay waxa la baajiyay ama la yiri waxa lagu ciyaaraya galbaaba xiran bila taageerayaasha labada kooxood kama soo qayb galiyaan cabsi laga qabo cudurka coronavirus-ka waana wax caadi ah si lamid ah sida ciyaarta Valencia Atalanta laakiin taas faa'iido weyn ayaa ugu jirta kooxda Borussia Dortmund oo runtii garoonka Parc des Princes kooxda Paris Saint-Germain waa garoon jamaahiiriya waa garoon taageerayaal aad iyo aad u cabsi badan ay ka soo xaadiraan inkastoo ciyaartooyada kooxda Paris Saint-Germain tartanka Champions League soo bandhigyo u qalma taageerada ay u muujiyeen taageerayaashoodu kooxda Borussia Dortmund xilli ciyaareedkan tartanka Champions League ayaa la dhihi karaa way kaga wanaagsan tahay horyaalka Bundesliga oo kulamadii ugu dambeysay marna laga adkaaday marna la barbareeyay si kasta ha ahaatee labada kooxood waxay u baahan yihiin inay guuleystaan ama ugu yaraan kooxda Borussia Dortmund ay barbaro kala baxdo ciyaartan si ay u gudubto wareegga state ciyaartan wax badan oo laga dhahay ma jirto kooxda Borussia Dortmund sida hore uga soo hadlay khaladaad difaaciyo weyn ayay sameeyaan dhibaatooyin badan iyo mashakil badan ka taagan dhanka difaacooda sidarteed waxay u baahan yihiin in ay taxaddar saayid ay sameeyaan sidoo kale waxay u baahan yihiin in ay gool dhaliyaan si ay ugu yaraan u gaadho ciyaartu extra time hadii laba gool laga dhaliyo waayo kooxda PSG oo gareena weerarkooda oo PSG oo gareena waxyaabaha ay awoodo oo gareena PSG tayada ay haysato sidarteed ciyaartu waxay noqon doontaa ciyaar aad iyo aad u adag Thomas Tuchel uma leeyahay inuu sameeyo doono khaladka ciyaartii hore oo uu adeegsan doono difaaca iyo cadaadiska culus uu adeegsanaya baan filayaa laakiin markan يعني weerarka ayuu xooga saari doonaa in ka badan difaaca way ciyaartii ugu dambeysay Borussia Dortmund ay kula ciyaarayeen garoonka kooxda Dortmund wuxuu aad iyo aad u difaacanayay eeriyadiisa yani in ka badan intuu weerar tagayay waxaan moodaa tabarahan uu wax ka soo waayarkay kulamadii hore kooxda Paris Saint-Germain ee tartanka Champions League laakiin kooxda Borussia Dortmund hadii uu ku weerar lahaa waayo asal ahaan shakisho wax ka tagan tahay difaaca hadii uu weerar lahaa khaladaad badan ay sameyn lahayn waayo markii Chelsea ay sameeyay kooxda PSG in khaladaad difaaci u dhacay laakiin markan waxaan filanayaa in kooxda PSG ay gool badan ka dhalin doonto kooxda Borussia Dortmund hadii uu mentality-ga saxda ciyaartooyda ku soo galaan hadii ay ku soo galaan qaab ciyaareedka saxda hadii taktiigga saxda ay ku yimaadaan ciyaartan saadaashaduna waxba iskama bedelayso oo halkii hore ayay taagan tahay kulankan ugu dambeeyay muuqaalkan maanta asxaabi waa kulanka aad iyo aadka loo sugayo waa kulanka kooxda Liverpool martigelin doonto Atletico Madrid inta aanan u tagin kooxda Atletico Madrid Liverpool ay doonayaan yar ka hadlo hadii aad ku noqoto muuqaalka ugu dambeeyay yani ciyaartan lugteedii hore aan ka sii hadlayay Liverpool aan ka hadlayay iyo Liverpool ciyaartan iman doonto Liverpool aad iyo aad kala fog yani Liverpool waxay ahayd koox lama taabtaan koox aan laga guuleysan karin xitaa koox aan la barbareyn karin yani waxa ay u dhignaayeen yani marka game la ciyaariyo kale kooxda ciyaaryahan ugu wanaagsan kala soo iibsatid ama aad keensatid yani koox aan ka badin karin wax kasta aad sameeyso laakiin markan xaaladdu way isbedeshay horyaalka laga adkaaday tartanka FA Cup laga saaray goolhayahoodu waa ka dhaawacmay qaab ciyaareedkoodu wuu liitaa yani ma kooxdii caalamiga ahayd ee Atletico Madrid uu
tagtay garoonka Wanda Metropolitano waxaa la leeyahay karaa mushkiladda halkay ka soo bilaabatay waxa weeye ciyaartii kooxda Atletico Madrid ay ka adkaatay Liverpool kooxda Liverpool qabyaaradkeedu hoos buu dhacay taas waa kow kooxda Liverpool difaacoodii sidii hore maaha taas waa labo kooxda Liverpool natiijooyinkooda xitaa sidii hore maaha oo laga guuleysanaya tartanka FA Cup oo laga saaray ciyaar foolxun ay la ciyaareen kooxda Chelsea waa hore ayaa 3-0 kaga adkaatay runaantii taas waxay inoo sheegaysaa in Liverpool ay tahay koox caadi oo laga guuleysan karayo aniguna ma beeninayo ama ma eedeynayo kooxda Jurgen Klopp heer caalami ay gaarsiin waan ogahay tayada ay haystaan waan ogahay waxay xaqiijiyaan waan garanaya iskama indhasaarayo horyaalkuna halkan ayuu yaalaa oo waxay ku guuleysan doonaan 2 toddobaad ama 3 toddobaad kadib laakiin kooxda Atletico Madrid kooxdan markana la ciyaari doonta runtii waa koox ka fudud ama ka jilicsan kooxdii ay la ciyaaraysay 3 toddobaad ka hor laakiin taas micnaheedu ma tahay in Liverpool tartanka Champions League ay ka baxayso maya micnaheedu maaha Liverpool way taqaanaa si laga soo laabto natiijooyinkii laga adkaaday Liverpool way taqaanaa si garoonkeeda Anfield lagu qoro taariikhda tartanka Champions League dhanka kale kooxda Atletico Madrid tan iyo guusha ay ka gaareen kooxda Liverpool yani natiijooyinkoodu wanaagsan yihiin sarukac ayaa jira inkastoo barbaro badan ay galeen horyaalka hadana sarukac ayaa jira oo kooxdu waxay muddaa in qiimaheedii sare u kacay kooxdu waxay muddaa in ay heshiiyeen tababarihii iyo taageerayaashii waa natiijadaas wax badan ay bedeshay kulankan waxaan filayaa in uu noqon doono kulan difaac iyo Diego Simeone aad difaac u adeegsan doono isagoo ka faa'iideysan doona yani soo baxa difaac ay soo bixi doonaan iyo difaac hore ku ciyaaraan up front ay joogaan taas oo ka faa'iideysanayo xawaaraha Morata Lemar iyo Korea hadba cid uu ku ciyaaro laakiin ciyaartu waxay noqon doontaa 90% difaac 10% counter attack dhibaatada ugu weyn haysan doonta kooxda Liverpool waxay noqon doontaa in goolyahoodii Alisson Becker uu ka maqnaan doono oo joogi doono goolya Adrian oo fahantii warwar badan ku haya taageerayaasha kooxda Liverpool kadib khaladaadkii madax ah ay u sameeyay ciyaartii Chelsea ee FA Cup taas ayaa laga yaabaa inay dhibaato weyn ku noqoto kooxda Liverpool laakiin dhinac kasta oo kale niyad samee ka taagan taageerayaasha kooxda Liverpool ciyaartooyada kooxda waxaana la filayaa in Liverpool ay soo laabasho sameyn karto Atletico Madridna ay natiijada ilaashan karayso anigu saadaashayda asxaabta toddobaadkii hore ayaan dhiibtay waxna ka bedeli maayo waxa laga adkaaday Liverpool iyo PSG ayaan u saadaalinaya inay soo gudbayaan waxay guuleystay Leipzig iyo Atlanta waan u saadaalinaya in ay soo gudbayaan afarta kooxood ayaan filayaa in ay soo istaagi doonaan ama ay sii tagi doonaan wareega 8 inkastoo natiijooyinkan ay adeeg yihiin laba kooxood kale natiijooyin ilaashanayaan laba kooxood kale natiijooyin ay doonayaan yani waa natiijooyin aad iyo aad u adag waa ciyaaro aad adag bay noqon doonaan waa tahay asxaabay muuqaalkan intaas ay ku egyahay fadlan hadda subscribe ka kubada ilaa subscribe to gobolka daartay ku soo gaadhay muuqaalada ugu dambeeya hadda hore subscriber oo ahayd fadlan like saar saaxiibada la share garay muuqaalada dambana la socda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh